waxaa gacanta lagu soo dhigay 3 maxaabiis oo dhowaan ka baxsaday xabsiga ugu weyn ee dalkan iyo Kamiti. Waaxda dambi baarista dalka ayaa sheegtay in shakhsiyaadkani oo ku eedeysanaa argagixisnimo lagu qabtay ismaamulka Kitui ee bariga dalka. Mr. George Kinoti, agaasimaha waaxda dambi baarista ayaa xaqiijiyay in sahanka gacanta lagu dhigay Maxamed Cali Abikar, Joseph Juma Odhiambo iyo Musharraf Abdalla Akhalyungu oo maalmo baxsad ahaa, taasoo sababtay in madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta uu shaqada ka joojiyay gudoomiyihii guud ee waaxda asluubta ee waddanka. Baxsashada maxaabiistani ayaa abuurtay shaki badan, taasoo sababtay in madaxweynaha uu shaqada uga joojiyo madaxda ciidamada asluubta iyo maareeyaha xabsiga weyn ee Kamiti. Soo qabashada 3 maxbuus ayaa u noqon doonta labadani hogaamiye neef weyn oo si weyn uga soo foqday. Si kastaba ha ahaatee, shacabka ayaa aad u boogaaday shaqada wacan ay qabteen laamaha amniga ee dalka. Hamza Mohamed, RTN, Nairobi.